wardegdeg ah Puntland ayaa markii ugu horeysay waxa ay si rasmi ah u ogolaatay in Mareykanka saldhig military uu ka furto magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari kaasoo noqon doona saldhig military oo joogto ah Mareykanka ku leeyahay deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Waxa kula wadaagi doona shir xasaasi ah oo shalay magaalada Boosaaso ku dhex maray wafdi sare oo ka socday dowladda Mareykanka oo hogaaminayay taliyaha howlgalka Africom iyo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo ay weheliyaan wasiirro iyo la taliyaal Israa'iil ciidan. Soo dhawaada muuqaalka like share qodobadii looga wada hadlay shirkaasi xasaasiga ah ayaa faahfaahinta kula wadaagaya haddii ay taboqshadaad ugu horeysay nagu soo biiro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran ee markasta hela wararkii warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka hagaaga madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo weheliyaan xubno wasiirro Israa'iil ciidan iyo la taliyaal ayaa maalnimadii shalay magaalada Boosaaso waxa uu shir kula yeeshay wafdi sare oo ka socday dowladda Mareykanka gaar ahaan howlgalka Africom oo hogaaminay taliyaha howlgalka gaarka ah ee Africom. Kulanka ayaa waxaa markaasi labada dhinac uga wada hadleen dardargelinta ammaankii sidii loogu wada shaqeyn lahaa xoojinta la dagaalanka kooxaha bulalida calmiskaad ee gobolka Bari iyo guud ahaanba Soomaaliya caqabada ku ah. Kulanka ayaa looga hadlay in markaasi la xoojiyo iskaashiga ka dhaxeeya Puntland iyo dowladda Mareykanka gaar ahaan dagaalada kooxaha bulalida calmiskaad, sugidda amniga badda cas iyo gacanka cadmeed iyo sidii markaasi Mareykanka uu hirgelin lahaa saldhigga uu doonayo in uu ka furto gudaha deegaanada dowlad goboleedka Puntland. Sidoo kale Puntland iyo Mareykanka ayaa kala saxiixday heshiis lagu ballaarinayo iskaashiga labada dhinac. Heshiiska Puntland ayaa waxa ay markaasi ku sheegtay inuu ahaa mid Mareykanka u ogolaanaya in saldhig rasmi ah uu ka samaysto magaalada Boosaaso si markaasi sare loogu qaado howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabadda caqabada ku ah ee deegaanada Puntland iyo guud ahaanba Soomaaliya. Puntland waxay xustay in ay ka go'an tahay dagaalada kooxaha caqabada ku ah amniga guud ahaan Soomaaliya si gaar ah deegaanada Puntland iyo gobolka Geeska Afrika. Waxay sheegtay in sidoo kale ay door muuqda ka qaadanayso sugidda amniga badda cas iyo gacanka cadmeed oo ay Puntland sheegtay in muhiimad gaar ah ay u leedahay deegaanadeeda maadaama ay ku xiran tahay ganacsiga. Puntland waxay sheegtay in kulankaasi guulo waaweyn markaasi laga gaaray dhammaan qodobadii dhinacyadu ay ku heshiiyeen isla markaana dhowaan la ambaqaadi doono sidii loo hirgelin lahaa dhismaha saldhig rasmi ah oo joogto ah oo Mareykanka ku yeesho magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Puntland waxa ay muddooyinkii ugu dambeysay dadaallo xooggan ku bixinaysay sidii ay u heli lahayd taageero caalami ah oo ay markaasi kula dagaalanto kooxaha caqabada ku ah amniga iyo jiritaanka dowlad goboleedka Puntland.